dhismihii gudiyadii golaha shacabka waa 14 gudi waxaan ku dadaalaynaa in maanta inaan dhameeyno marka waxaan rabnaa si arinta loo guud galo anigu xafiis ahaan iyo howlwadeen ahaan waa isqiibinay inta waxa ku haraya gudoomiye ku-xigeenka labaad iyo habdhowraha iyo hogayaha intii howlwadeenada la ah iyo xildhibaanadan waa fadhinayaan aniga gudoomiye ku-xigeenka koowaad waxaan tagaynaa xafiiskayga kaasan tagaynaa guddi kasta waxa uu yeelayaa habdhowraha gudoomiye ku-xigeenka labaad la ogaanaya marka guddigii la waco xaq ay nooga imaanayaan waa fadhiisan aniga goobjoog waxaanayna ayaga is dooranaya si aan u xaqiijino anigoo ilaalinayno waxyaalo badan maaragtay oo la rabo baarlamaanka madnamadiisa ay ku jirto sida maaragtay power sharing ay kamid tahay marka xaqan fadhiisanaynaa guddi kasta hortaanadu isku dooranaya marka doorto waa baxaya guddiga ku xiga imaanaya ilaa ay ka dhamaato isla maanta inaan dhameynaa rajaynayna marka idinku aad u mahadsan hadlo dulqaato waa hal maalin maanta inay naga gabagabowdo yaan isku dayna waad ogtihiin dastuuriyan 14 wax la rabay baarlamaanka inuu fasax galo duruufaha yaala iyo waajibaadkan hortaagan daraadeed ayaan u dhaqaaqi weynay waliba waxaan loo xigi doonaa tan markaan dhameysano barnaamijka saadam oo isku soo noqon doona waxaa la dhameystiri doonaa guddiga dastuurka marka ayagana ku darno kadib ayaa fasax la gali karaa marka idinku aad u mahadsan idinku saa u fadhiya yaa maaragtay anagu maaragtay xagga idinka tagi doonaa idinkaas isku haraya guddiga la soo diro yaan xagga doorashada goobjoog u haanayna aad u mahadsantihiin waxaan idinka rajaynaynaa si degan in arinta nooga dhamaato aadna u mahadsantihiin barnaamijkii maaragtay shirki kale oo caadiga ah noo furna saasa nooga dhamaanaya waxaan bilaabaynaa shaqadii aan gudagalaynaa aad u mahadsantihiin salaam